kusoo dhawaada barnaamijka Faacusub toddobaadkan aad iyo aad u xiiso badan yahay waxaana ku daawan doontaan xubnaheeni joogtada ahaa sida xubintii wararka xubintii maalintayda xubintii akhlaaq wanaag xubintii suugaanta iyo xubintii kale su'aalaha markaana waxaan isla soo gaarnay xubintii wararka Soomaaliya waa federaal waxay u taagan tahay inay jiraan lakabyo dawladeed oo kala sareeya isna kaba awoodaha iyo mas'uuliyaduhuna u qaybsan yihiin waxaa dhacda dalal isku magacaaba inay ku dhaqmaan hanaanka dimuqraadiga haddana dadkoodu aysan ku nooleen xorriyad iyo sinaan taa macnaheedu waxay tahay haddii dadweynuhu aysan helin adeeg dawladeed oo damaano qaada xorriyadda iyo sinaanta xuquuqda muwaadinkooda laguma tilmaami karo dawlad dimuqraadi ah si kasta oo ay ugu qudbeeyaan golayaashooda dal kasta oo doonaya inuu gaaro nidaamka dimuqraadiga waa in uu leeyahay saddexdan qaybood ee dawladda oo kala madax bannaan is-xisaabiya isna dhammaystira kuwa oo kala ah laanta fulinta oo ah xukuumadda iyo madaxtooyada laanta xeer dejinta oo ah baarlamaanka iyo laanta garsoorka oo ah maxkamadaha saddexdan laamood ee dawladda sida magacyadooda ka muuqata midba mas'uuliyad gaar ah ayay ku aadan tahay waxaana dawladdu gaari kartaa waajibaadka dastuuriga ah ee loo igmaday marka laan walba oo dawladda ka mid ah hawsheeda uga soo baxdo waqtiga ku habboon iyo sida ugu habboon waa maxay dawlad doorasho maxay tartaa nolosha aadamuhu kama maaranto dawlad ka shaqaysa danta guud oo ilaalisa danaha ay wadaagaan dadka dhistay tan waxaa ka marag ah taariikhda aadamaha midda fog iyo tan dhowba way adag tahay in la helo bulsho danaada oo aan maamul lahayn sidoo kale waxaa tusaale nool u ah bulshada Soomaaliyeed heerka ay ka joogaan horumarka dunida ay ka gaartay maareynta nolosha intii ay dawlad la'aanta ahaayeen inkasta oo lagu guuleystay in la soo celiyo iftiinkii dawladnimada oo marba heer soo marayay haddana himilooyinkii uu ku taamayay muwaadinka Soomaaliyeed heerka dawladnimada ay hiigsanayeen ummadda Soomaaliyeed waa in la helaa isfaham buuxa oo siyaasadeed oo horseeda jiritaanka nidaam qeexaya habka ugu wanaagsan ee la tijaabiyay laguna xaqiijin karo hiigsigaas waa in la helaa doorasho xor iyo xalaal ah waan ilaaway inuu cudurka coronavirus jiro oo khatartiisa aad u badan tahay intaan wajiga gacmaha la aadin waa inaan hadda gacmaha iska dhaqaa sababta aan sidan u sameynayno wasaaradda caafimaadka waxayna faraysaa in markaad hindhisayso xusulka aad laabatid ku dabool afkaaga ama sankaaga afshareer ku dhaqo gacmahaaga mar walba jeermis dile waa inaad dadka ka fogaataa ilaa iyo 1 mitir waa inaad dhaqdaa gacmahaaga mar walba haddii aad isku aragto qandho ha aadin saaxiibadaada ee u sheeg waalidkaaga waa inaan ku dadaalnaa nadaafadda si aan iskaga ilaalino cudurka coronavirus waa maxay sababta san u sameynayno maxaa yeelay waxaa jiro cudurka coronavirus saameynta cudurka coronavirus uu ku hayo wadamada kale markii loo barbar dhigo Soomaaliya waa mid liidata laakiin waa inaan ku dadaalnaa nadaafadda haddana ku soo dhawaada xubintii maalintayda kusoo dhawaada barnaamijka Faacusub Xayaad Maxamed Yuusuf waan dhawahay haye noo sheekay maalintaada
subaxdii ayaan soo kacaa, quraacda ayaan kariyaa, dugsigayga ayaan aadaa. Dugsiga 4 saac ka soo baxaa. Dugsiga markaa 4 saac ka soo baxo 5 saac waa diyaaraya dugsiga aadaa. Iskuulkayga ayaan aadaa. Iskuulka markaa waxaan ku qaadanaa xiisooyin kala duwan. Xiisada markaan dhammaysano waxaan nala siiyaa 30 daqiiqo oo break ah. Markaas soo dhammaysano markaas xiisad kala sii dhammaysanaa kabacdi 11 saac la gaaraa waan soo fasaxaa. Xaafadeen ayaa soo aadnaa. Inta jidka soo socono aniga saaxiibadeeda Caasho iyo walaaladeyda ayaan isla jidka iskala ciyaarnaa. meeqaadata Shanaad. shanaadata okay iskoolka magaciis Hanti wadaag meeqa saac ayuu soo daaya 11 saac. saaxiibo ma leedahay Haa. magacood Samiiro, Saaro, iyo Fatxi. intaas saaxiibada iyo fasalka oo dhan laakiin halaas qaas ahaan saaxiibanahay. barnaamijka facusub inaad kasoo muuqato faraxsan tahay Si wanaagsan. ma rajeynaya mar kale inaad kusoo muuqato Haa. waa mahadsantahay maalinteeda intaas ayay ku saabsaneed sidaas iyo nabadgelyo. waxaan isla soo gaarnay xubintii akhlaaq wanaag waxaana weydiin doonaa caruur ku nool magaalada Muqdisho sidee loo noqdaa qof fiican ama qof wanaagsan. magaca noogu bilow marka hore. Usmaan Xasan Mucud. waalidkaaga maxay kula taliyaan si aad u noqoto qof akhlaaq wanaagsan? waxbarashada iyo inaa umada tuuriyeyn inaa u fiicnaasho salaadii oo ku socdo wax fiican ah. iskoolka iyo dugsiga sidee lagu tababaraa si aad u noqoto qof akhlaaq wanaagsan? sida gaar ah waxaan tababaraa inaa waxbarashada u fiicnaato oo sheekeena oo fiican ah waadna jawaaboon waxaas camal leeyahay. wadooyinka markaa marayso maxaa fiican inaad sameyso? waxaana fiican inaad sameeyo iska duceysto oo ilaahay iska tuugo oo salaadii iska dugto waxaasaa fiican. qof inaad u yeerin tartiibka quraanka iyo iskoolka iska barto tartiibka iska seexdo iska hergalo tartiib saas la noogu socdo. saaxiibada da'daada ah sidee ula talin lahayd si ay u noqdaan qof akhlaaq wanaagsan? inay quraanka bartaan iskoolka oo ku fiicnaadaan oo mararka qaar jimcihii khamiistii oo filimka ama oo banooni iska dheelaan oo badnaanin oo filimka markay fiirsanayaan ay ka dheeraadaan. marka hore magacaaga saddexan. maxamed cali maxamed. sidee loo noqdaa qof akhlaaq wanaagsan? waalidkaana wax ka maqashay, hooyadaana wax ka maqashay, macallimiintana war ka maqashay. waalidkaaga maxay kugu taliyaan si aad u noqoto qof akhlaaq wanaagsan? inaa wax barto oo aayar gaaro. iskoolka iyo dugsiga markaad joogtid maxaa lagu taliyaa inaad sameysid si aad u noqoto qof akhlaaq wanaagsan? inaa wax barto oo aan ilmihi u faa'iideeyo markaa ilmo dhalo. wadooyinka markaa goonaysa maxaa lagaaga baahan inaad sameysid? maamadii soo marta inay dhacay inaad ka alaaliyo oo wixii yeelnaa ka qaado. saaxiibada maxaa jeceshahay inaad ula talisid si ayagana u noqdaan qof akhlaaq si wanaagsan? aan camal inaan noqdo wadadeyna soo raacan. waa mahadsantahay. allah mudan. soo dhaweynayaa xubintii ciyaaraha doorkaana waxaa ciyaari doona gabdho waxaana ciyaari doonaa gariir.
فتحي عيارين قرير هلو يا عيارين سمية رملان نلا بديان كل دنبو حيسان magacayga oo Sumayo iyo Ramlo iyo Ubax iyo Fatxi aan dheelaynay gariir haleeto waana ka badinay garoon xiiso ciyaartan hadda aan ciyaareynay waa gariir sa u jeedeen waxaa lagu ciyaaraa 4 iyo wax ka badan hadda waxaa ku ciyaareynay ani iyo Fatxi iyo Ubax iyo Sumayo Sumayo idin sheegtan waxay guush raacday ani iyo ayada danbo xiiso leh qaybtan ciyaaraha waxaa ku jiro wiilal biskuleet ciyaarayo aan soo daawano ayaan ila socdi baabuurka meesha maraya cadaanko aqlaadi soo dhaafay soo dhaafay salaadkan arkeen wala loodan masna loodan ninka alqabtay furaale qaad baabuurkana leeyahay jijiya ani usqolka midli ninka baabuur maawu darastaa ana galaajiya ana alilay baabuur ma ku dardar ana galaajiya iyo galaajiya taa inta iyo kaadin kana artena traffic mulkin olgey أنا وصلنا القط أورتدي الوعي أورتدي مادي كي مادي بسيل كاري قال عمودي ريالي جيبس على الجيس ciyaarteennana waxaa ku jirto xarikabood maanta waxaa ila joogto Fatxi Cabdiweli waxayna ka mid tahay tabiyaasha faaca cusub waxayna noo haysaa sheeko aan ka dhageysano ay ku soo dhawo barnaamijka faaca sheeko xariir حاجة سدح لو نحل جرين ميل دور فاهم عارف كنت اسكو جري إن أو سدح ستوي ميت كميد هالدور ميد كميد هالدور أيك بدو كسوق أيك بدو إنك كسوق كابتن الجديد markaas kadib us aqli oo sameystaan midka cadaanka haweenkii waan soo aroosanahay iska jirin laba kale way ogolaadeen hay'ad bixin markaas kadib midka walbi waxa uu maadil fahmid cadaanka markaas kadib waa cunay midka madow ama saano midka madow haweenka kala guduudka waanu soo waarsanahay ayaa isku xiran midka madow hayuu dahay oo iska qaatay wuu baxay midka guduudka waa la furiyay libaaxna inuu u imaado cunay midka madow la imaansanada saaxiibada anaa adina ku cunaa saanada markaa dibi cad markaa dishay aan dishay ee cun markaas kadib waa la cunay oo dhamaatay hay sheeko kale ma noo haysaa noo sheeko xariir waxaa jiri 3 wiil iyo 4 gabdhood maalin kasta iskool ay aad jireen maalmaha ka mid ah hooyo aasaa da maray meesha u digtay mariista ha ka kicin ilaaliya lahayd markaas kadib saddex dabaala ahaayeen way bixin oo liisha ahaayeen saana la iskulaata ninka tugino ka xadin waxaas iskulaata iska raaceen ay 4 dabdood ku soo haray hal dabdood way baxday ninka idoo biiso cadarabto ninka aan dili waa cunay loo dabdood soo haray midka kale dabaal ee saana la iskulaata nina wax badan soo raacday markaas kadib ninka tuug wuxuu u imaaday kan kale oo aqliyada ahayd saanoo dahay meeshaan bambaa ku dhex jirto heena u sheegay saanid meeshaan bambaha sikat aan waa kudin karaa ka kacayay hooyadii ay saanid ilaad ka kacayay meesha bambada runa ahayd ku dhex jirto saak u keenay daam xataa maro la ahayd kadib marada soo qaado soo baxay
hooyadiis meeshana waa qaraxday laba kala umaadeen way waa dhibteen sheekadii ee noo waday fatxi halaaseen oo egtahay kulanti waxaan wanaagsan markaana kusoo dhawaada suugaan ka hadlaysa qiimaha waxbarashada آدم مركينا ومايو إلى ملائكتي أمره إلى ملائكتي أمره إلى إبليس كما ينهدي كلا سجودي انتي كلا سجودي آدم مركينا ومايو إلى ملائكتي أمره إلى ملائكتي أمره إلى إبليس كما ينهدي كلا سجودي انتي كلا سجودي أمرك برو عديدو وإبليس تكيسيه أيان تلس إساويو أبال مكان ولا أمرك أبرو حديدو وإبليس دتكيسيه أيان تلس إساويو أبال مركذا أولا أركي أسلوب لاني أمرك هو يضب مغلي أمرك هو يضد مخلاف فانتي أجبتو مرنا إني مرنا إني المينيني أركي أسلوب لاني أمرك هو يضب مغلي أمرك هو يضد مخلاف فانتي أجبتو مرنا إني مرنا إني المينيني أنا أدونك جوين بأوكيبنا وقاضي إيو ديباتو آوذينا آي أصومتي أنا قادونك جوين بأوركاذا ناغو قادية إيو ديباتو آوذين آي أصومرتي إن شاء الله وحن آنينا أرضي أسلوب لي إن شاء الله أسلوب له وآية القرآن كأخرسكي سألت دالعدي إن شاء الله دالع ذا إن شاء الله وحن آنينا أرضي أسلوب markaana waxaad ku soo dhawaataan xubintii su'aalaha ee toddobaadlaha ah waxaana weydiin doonaa dhowr caruur ah ina keena ku soo dhawaa barnaamijka faac cusub magacaha hodan waxaa ii sheegtaa xubinta markii wasaqoodo caddaan noqoto mataqaanid waa mahadsan tahay marka hore ku soo dhawoow barnaamijka faac cusub magacaha Abdiraxmaan Axmed Maxamed hal su'aalaa rabaa inaan ku weydiiyo ma ogashahay waxaa sheegaysaa xubinta mar walba ee wasaq noqoto oo cad noqoto carab waa mahadsan tahay isla su-aashaan ayaa waxaa u raadinaynaa cunug kale maadaama cabdiraxmaan ka jawaabay kusoo dhawaa barnaamijka faac cusub magacaaga noo bilaaw yaasir waa mahadsan tahay yaasir waxaa ku weydiinaya inaan su-aal ku weydiiyaa rabaa ma ogashahay waxaa sheegtaa xubinta mar kasta ee wasaq noqoto caddaan noqoto waa mahadsan tahay waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay barnaamijka faac cusub tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan